xilli dambe oo habeenkii ah meel cidla oo saxara ayaa gaari markaasi soconayay. Ninka gaariga wadaa wuxuu isku dayay si kasta oo awoodiisa inuu markaasi caajiska la dagaalamo. Markasta uu markaasi stationka raadiyaha ka bedelo oo hees kasta geysto, haddana caajiskiisa wuu sii badanayay. Daaqadda ayuuna fiirinayay. Nasiib wanaag waxa uu soo gaaray meel ay markaasi wadada kor u kacayso. Caawa dhan ayuu wuxuu soo socday highwayga tooska ah, taasoo caajis ku sababtay. Markaasi si tartiiba ayuu gaarigii kor ugu waday, isagoo markaasi isdhahaya way dhammaan doontaa. Laakiin markii uu gaarigii highwayga haddana ku soo dhacay, wuxuu arkay meel fog wax taagan. Waxaasi muu garanayay waxa uu yahay. Indhaha ayuu la raacay, isagoo isku dayay waxa uu yahay inuu arko. Ugu dambeynna wuu arkay haweeney dhalinyaro ah ayaa waxay taagneyd wadada dhinaceeda. Waxay qabtay maro cad, jirkeedana waxaa mid aad u cad. Tin madow oo sida habeenkii oo kale ayay lahayd, taasoo wejigeeda markaasi qarinayay. Maxay meeshan ka qabanaysaa kaligeed ayuu isweydiiyey. Meelay dad ku nool yihiin oo meeshan ka dhow saacado ka sugaysa ma jirto. Ninka markaasi gaariga si tartiiba ayuu u waday, isagoo ka fakaraya inuu qaado iyo in kale. Laakiin markii uu gaariga u dhaweeyay ayuu wuxuu dareemay qabow saa'id ah. Inkastoo ay taagan tahay saxaraha dhexdiisa, haddana tinteedu waxay ahayd mid qoyan. Waxaabaad moodaa hadda inay soo gabaysatay. Inkastoo ay tinteeda badanaa wejigeeda qarinayso, haddana sidaas tahay inta muuqata aad ayay cabsi u ahayd. Waxay lahayd dhoolla caddayn aan dabiici ahayn. Midda ugu cabsida badan waxay ahayd indhaheeda waaweyn oo madow, taasoo inkastoo ay tinta ku qarinaysay, haddana la arkayay oo si toos ah asaga isha ula raacaysay. Markuu eegay qaabkay u eg tahay, ayaa ku kaliftay ninka ra'yigiisa oo dhan inuu bedelo oo gaarigii wuu la dhaafay. Inkastoo ay ahayd gabar yara oo markaasi taagneed meel saxara, haddana qaabkay u eg tahay ayaa waxay siisay ninka markaasi dareen aad u xun. Waxaa laga yaabaa inay saan u dhaantay arrintu, ayuu ninka ku fakaray. Waxaa laga yaabaa inay isku daysay inay istaajiso, kadibna saaxiibadeed meelaha ku dhuumanaya ay gaarigayga iga dhacaan. Intaas ayuu ku fakarayay isagoo qarinaya inuu cabsanayo. daqiiqado badan markii uu gaariga ku socday highway toosan, ayuu ugu dambeyn wuxuu soo gaaray meel kale oo wadada kor u kacayso. Wax dhibaato ah kuma qabin. Si tartiib ah ayuu gaarigii kor ugu qaaday. Laakiin markii uu gaariga hoos u soo degayay, ayuu wuxuu arkay wax kale oo la yaab leh oo wadada geeskeeda taagan. Markaasi wuxuu arkay inuu yahay qof kale oo wadada geeskiisa taagan, laakiin dareen aad u xun ayuu dareemay markuu arkay qofkani inuusan ahayn qof caadi ah oo kale, ee uu yahay qof saa'id ugu eg gabadhii uu arkay wadada geeskeeda taagneed. Macquul ma ahan, ayuu ku fakaray ninka, asagoo gaarigiisu markaas u soo dhawaanayay haweeneyda. Naagtani saa'id ayay ugu ekayd midii hore. Waxay qabtay maro cad, jirkeedu wuu cad yahay, tin madow oo markaasi qoyan, iyo sidoo kale indho aad u waaweyn oo isaga isha la raacaya, iyo sidoo kale dhoolla caddayn aan dabiici ahayn. Laakiin markani saa'id ayay ugu soo dhowdahay wadada. Dhoolla caddaynteedina aad ayay si cabsiya uga sii weyn tahay intii hore u arkay. Indhaheedana asaga ma ahina meel kale kuma jeedaan. Kamaba uu labalabayn markani, xoog ayuu gaariga u dhaafsiiyey. Siduu u wadayna gaariga, ugu dambeyn habeenkii ayaa ka qariyay muraayadiisa. Macquul ma aha inay isla haweeneydii tahay, ayuu ku fakaray. Macquul ma aha inay soo gaadhay meeshan inta aan soo gaarin ka hor. Waxaa laga yaabaa dad markaasi dadka meesha maraya barankii ku sameynaya inay yihiin. Waxaasoo dhan waxay ahayd isku dayay inuu nafsadiisa ku dejiyo, inkastoo uu aad u cabsanayay. Wax walba waxaa ka daran mar kale ayay wadada meelay kor u qaadmayso uu ka soo gaaray. Hadda wuu cabsanayaa, isagoo ka baqayay inuu arko waxa taagan dhinaca kale ee wadada. Laakiin ma uu rabo inuu nafsadiisa ka dhaadhiciyo inay dhacayaan wax markaasi aan la sharixi karin. Markaasi ma uu rabo inuu istaago. Saas darteed si tartiiba gaarigii kor ayuu u waday. Markaasna si tartiiba hoos ayuu u soo dejiyay. Laakiin sidii hore oo kale meel fog ayuu markaasi wuxuu ka arkay wax taagan wadada geeskeeda. Cabsi saa'ida ayuu jirkiisoo dhan ka dareemay. Maya, ma dhici karto, macquul ma aha, ayuu ku qayliyay. Isla sidii hore oo kale markii uu gaariga u soo dhawaaday, wuxuu arkay inay tahay haweeney, midaasoo u eg tii kale oo markaasi qabta maryo cad, jir cad leh, tin aad u madow oo qoyan, iyo sidoo kale indho aad u waaweyn oo ka soo muuqda tinta gadaasheeda oo isaga isha la raacaya. Sidoo kale waxaabaad moodaa inay u dhowdahay inay istaagto wadada bartamaheeda. Dhoolla caddaynteedana sidii hore aad ayay uga sii weyn tahay, ilaa aad moodo inay ka bilaamatay dhag ay ku gaarisa dhegta kale. Indhaheeda iyo indhihiisana markaasi way iskabtay markuu u dhaafayay.
ninkii wuu qayliyey markaasna wuxuu bilaabay gaarigii si xawliya inuu u wado asagoo markaasi naagtii dhaafaya. sidee macquul ku tahay inay degdeg ku dhaqaaqdo? asaga nafsadiisa inkastoo uusan sharaxi karin waxa dhacayo, haddana wuu ogyahay isla haweeneydii inay tahay, amase isla wixii ugu horeeyey oo markii ugu horeeyey uu arkayay. markasta wuxuu maqli jiray in waddooyinka cidlada ay joogaan waxyaabaan bini'aadan ahayn, laakiin weligiis ma uusan rumaysan jirin. hadda ka hor maxay rabtaa ayuu nafsadiisa weydiiyey. indhihiisa gadaalii hore ay eegayeen asagoo iska fiirinaya agagaarkiisa, waxauna dareemaya cabsi saa'ida. inkastousan markii hore ku tashanayn inuu mardhow gaarigiisa istaajiyo, haddana saasay tahay aad ayuu uga cabsanayaa inuu gaarigiisa habeenka sii wado. markani wuxuu go'aansaday marka ugu horreeya uu arko meelu ku degto inuu ku degi doono, laakiin wuu ogyahay saacad ka hor inuusan degi doonin. mar kale ayuu wuxuu soo gaaray meelay waddadii kor uga kacayso. markani dhiigii dhan ayaa qaboobay, mana uu rabo meeshaasi inuu arko waxa dhinaca kale ku sugaya, laakiin inkastoo uu rabo inuu istaago, haddana saas tahay meeshan kuma degi karo. wuxuu og yahay inuusan gadaal u laaban karin, sidoo kalena gaarigiisa uusan ku istaajin karin meelaysa waxba ka dhoweyn. markaasi wuxuu nafsadiisa u sheegay in meesha markii uu ka degto si xoog uu gaariga u wadi doono haddii uu malabaad iyadii arko. asagoo gacmihiisu gariirayaan haddana neeftiisu culus tahay ayuu gaarigiisii si tartiiba kor u kacay. inkastoo uu aad u cabsanayo oo aad moodo wadnaha inuu kasoo bixi doono, haddana si tartiiba ayuu isha ugu fiiriyey waxa ka horeeya, laakiin waxba meesha ma taagna. ninka aad ayuu ula yaabay, haddana aad ayuu ugu farxay maadaama aysan naagtii meesha joogin. isagoo weli cabsi ku jirto ayuu bilaabay inuu meelaha fiiriyo, laakiin daqiiqado markay dhaafeen uu arkay inaysan naagta meesha joogin ayuu ugu dambeyn wuxuu awooday inuu neefsado. ma dhammaatay ayuu isweydiiyey. ayadii ma tagtay ayuu dhahay. markaasi gaarigii wuu sii watay, wuxuu nafsadiisa markaasi u sheegayay inay markaasi cabsidii dhammaatay. farxaddiisa waxaa u sii badisay inaysan meel kale oo waddada kor uga kacayso aysan ka horeynin, markaasi taas oo micnaheedu tahay inay magaalo ka agdhowdahay. markaas ayuu wuxuu isku yidhi ma aamini karo inaan nafsadayda ka cabsi geliyey. waxay ahayd dabcan carruur barankii u samaynaya, waxay ahayd gadaal inaan u laabto oo markaasi cashar u dhigo. inkastoo uu faraxsanaa, haddana wixii dhacay layaab saa'ida ayay ku reebtay. weli wuu aamini la'yahay inay tahay wax macquula oo markaasi la sharixi karo, laakiin waxaan haba ahaatee hadhow ayuu ka fakari doonaa. markaas ayuu ku laabtay inuu rikoorka haddana ka raadiyo waxa uu dhegaystay. xoogaa markuu waday uu waxba maqli waayey ayuu wuxuu kusoo dul istaagay cod layaab leh, markaasna si saa'ida ayuu u dhegaysanayay codkii. bilowgii hore wuu la yaabanaa waxa uu dhegaysanay waxay yihiin, laakiin markii uu fahmay ayaa waxa uu dareemay dhiiggiisa oo qaboobayo. markaas ayuu fahmay codkan waxay ahayd markaasi haweeney ooyeysa. isla daqiiqadahaas ayaa gacan saa'id u cad ka soo baxday dhinaca gadaale gaarigiisa, kadibna wejiga ayuu qabtay. markaasna cidiyaha ayaa wejiga ka galayay. ninkiina wuxuu bilaabay inuu si saa'ida u qayliyo. gaarigii markaasi kontaroolka ayuu ka baxay oo hadba dhinaca ayuu u dhaqaaqay highwayga. ugu dambeynna dhinaca ayuu u leexday gaarigii, kaasoo uu ku dhacay carri dhagaxaan ah. gaarigii meesha ayuu ku jajabay, hoonkiisana bartaas ayaa laga maqlayay cillada ah. saacad ayaa ka soo wareegtay. tiim batrool ayaa meeshii soo gaaray, markaasna waxay fiisheen gaarigii si u hubiyaan inuu ninka nool yahay, laakiin waxay arkeen aad ayuu u naxdin badnaa. maydkii ninka weli wuxuu ku fadhiyey kursiga oo waxaa ku xidhnaa suunkii, laakiin madaxiisa dhiiga lahaa. markaasi waa la jebiyey oo gadaal ayaa loo jeediyey, asagoo markaasi eegayo kursiga gadaale ee gaariga. inkastoo uu qaabka u dhintay naxdin ahayd, haddana isla markiiba tiimkii waxay u dhaqaaqeen si ay gaariga u baaraan. gaariga nasiib wanaag qof kale kuma uusan jirin. markaas ayaa waxaa jiray wax ninka soo jeediyey, taasoo ahayd sharqan ka imanaysa gaariga dhinaciisa gadaale, sidii inuu qof garaacayo oo kale. mid ka mida ayaa markaasi furay. markii uu furayna aad ayuu u naxay, wuxuuna arkay gabar yara oo ooyeysa oo gariiraysa, gacmaheeda iyo lugaheeda markaasi ay xirxiran yihiin, afkeedana sidoo kale la xiray, sidii in loo diidan yahoo kale inay wax coda ama hadala ay samayso. isla markiiba gabadha yartaa wixii ku xirxirnaa waa laga furay. ninkii ayaana soo xambaaray asagoo raba inuu gaarigiisa ku rido. markaasi uu gacmihiisa ku wado ayaa iyadana gabadha yartaa gacmaheedana sidoo kale wax ayay ku wadataa. waxay ahayd boombala yara
oo gabadhu gacanta ku wadatay. Waxay qabtay maro cad, waxay lahayd jir aad u cad, waxay lahayd dhoolla caddayn weyn iyo sidoo kale indho aad u waaweyn. Waxay sidoo kale lahayd tin aad u madow sida habeenkii oo kale oo aad moodid markaas inay qoysay gabadha yartaa ilinteeda.